agaasimaha guud ee waxbarashada, mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir dhammaan iyo culimadiinka iyo akhyaarta halkaan fadhido iyo dhaqanka habla si fiican ay fiirinay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan kadib, kelmad kasta oo runtii meeshaan halkaan fadhino munaasab ku aheeday intii iga horeysaa sheegtay. wax aan hadda ugu noqdo oo aan ku garanayo ma jirto. waan uga mahad celinayaa cid walba say u abaartay muhiimadda halkaan loo yimiday. maanta waxay ahayd daafur la daafurayo istiraatiijiyadaasi 4 sano soo socoto ee waxbarashada. mas-uuliyaddu waa mas-uuliyad wadareed. mar haddii waxbarasho laga hadlaayo intii wax garato ayay mas-uuliyaddaasi saaranta. waajibnimadeedana ilaaha noo sheegay oo wuxuu u gooriyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo soo dejiyey qur-aanka. waxay ahayd iqra bismi rabbika aladii khalaq. iqra ayay ahayd wax akhri. qalinkii iyo kullina waad ogsoontihiin aayadaha qur-aanka meelaha ay ku soo aroorto. nuun walqalami wamaa yasduruun waatuu ilaahay u leeyahay. qof kastana ilaahay wuxuu iri markay dhalanaysa wallahu akhrajakum min buduuni ummaatikum laa taclamuuna shay-an. qof kasta markuu uurka hooyadiiska soo baxaya waxba ma aqooninaa la yidhi, laakiin aaladiyaa la daba dhigoo loo sameeyo wajacala lakum samca walabsaara walafida. qalbigii wax weeleynaayay, dhegti wax maqlaysa, ishi wax arkaysa, intaba waa loo sameeyey. intaba waa inay wax ku kasbadaana laga rabaa. marka waajibaadna saaran waaye. runtii kelmadihii muhiimka ahay horaa looga wada dhawaajiyey. doctor calina waa ka dhawaajiyey oo waxay aheeday ummaddaani runtii waxaa ragaadiyey waxay tahay 90-yadii wixii ka dambeeyey waxbarashadu way laalaaday. markay soo hana qaadana waxay dadku maaragtay taariikhdoodii iyo juqraafigoodii iyo dadka lama baraynin. mawaadka inta badan waxay ku qaadanayeen waxaana haddii loo af soomaaliyey lahaa oo xataa af soomaali looga dhigi lahay maanta dadkaynu wax badan ay ardadaynu ka faa'iidaysan lahayd. laakiin markasta inaan soo minguurino annagoo dad kala qancinayno, xillina carabiya ahayd xillina ingiriisay noqoto baashi, markaasaa meel dhexe ayuu qofku ku daalayaa. marka taasna waxaan rabnaa inaan uga gudubno oo aan ku kalsoonaano luqadayna. hadda kahor shilaa Belgium ka dhacay. haddii aada isku kalsoonaa weyso waxa waaye naqsi unbaad ka shaqaynaysaa, horumar ka shaqaymaysa. shir Belgium ka dhacaa jira hadda ka hor oo madaxweynayaasha reer Yurub ay kasoo qayb galeen. nin Faransiis ah ee ganacsada ah ayaa kelmadu ka jeedinayay, kelmad ku lahaa. kelmadii wuxuu ku hadlay luqada Ingiriisiga. isla markii madaxweynihii Faransiiska albaabku ka bax. markii la isweydiiyo la war maxaa ku dhacay madaxweynaha, wuxuu yiri maxaa ku kalifay inuu luqada Ingiriisiga ku hadlo isagoo Faransiis ah. luqadiisa uu ilaashanaya. annaga marka Soomaali haddaan nahay xaggana ma jirno intana ma jirno meel dhex oo haabaynaasaan ku dhibanaynaa. marka meel dhexana waxba lagu masixi karo. aqoontu markasta marka waa nuqsaan waayo. qofku wuxuu wax ku baga karaa luqadii hooyadiis iyo aabiis ay ku dhaleen inuu wax ku barto wax ku bogo karaa. marka taas aan mas-uuliyad iska saarno oo aan xoogga saarno haddii ilaa yidhaahdo. wasaaradda waxbarashada iyo gobolka Banaadir ayaa laga dhawaajiyay daaya. sideedaba markii wax la shaqaynayo wax la qabanayo waa suu tafaahum iska dhacaya. laakiin marnaba annaga iyo wasaaradda waxbarashada waxba yaraatay khilaaf ah oo maanta naga dhaxeeyo ma jiriyo. waa wasaaradayni, annaguna maamul gobolka Banaadir aan nahay. wasaaradda waxaan aaminsannahay waa aabihii. aabuuna ilmahu dhale waxaa rabaa inuu madaxa ka wada salaaxo. inuu midna madaxa ka salaaxo midna madaxa ka salaaxi waayo waxa waaye aabbay ku noqonaysaa. marka wasaaradda maamul goboleedyada gobolka Banaadir waas ag fadhiistaan beryahan. say isu ag fadhiistaan ayaan wasaaradda ugu simannahay. boolisiga siyaasadeed ee guud ee waxbarashada ayayna mas-uul nooga tahay. weliba dadkaan kula ribaynayna waxbarashada ayaa maanta gacanta ku hayo wasaaradda waxbarashada. mas-uuliyadduna waxay naga saaran tahay ubadka Soomaaliyeed
أيام مسؤولية نجود سارنتها مانتا هدي إلى إرادة مانتا هذا مسؤولية داس عن ضيعننا بالرتوة وإحنا لو يديدون هدي إلى إرادة مركا وزير الدنوا شاكتي أمامنا واكده وجحور أضياشة حوالي لنا الله في الشيء ما موينك وقالوا قد ذا هدي إلى إرادة واسعد يبي صعد في قانا هدي الله ود الله كل هذا وقد ذا مركا waxbarashadu waa shay waajibna wada saaran inaan ku wada dadaalnaa naga rabaa guddiga arrimaha bulshada juhdiga iyo dadaalka uu bixin waa ku mahadsan yihiin in dowladda federaalka Soomaaliyana ay siisay ahmiyadda ugu horeysa inay siisay waxbarashadii oo ilaa maaragtay intaasoo kun lagu kordhiyay oo macallin intaasoo budgetkooda lagu kordhiyay waa wax weyn ayay u tahay waxayna ku tusaysaa dowladda hadda joogto meeshay waxbarashada ka joogto وصومرنا مرنا لليه قال لي كديك قرقة قاطة وصومرنا وأرجنا لكن قال لك هدي لنا قرقة لقاطة قرقة لسيدي ما هي قر ما قال لك الله صون غنيا مركب وإيران قال لك عن قادنا وقال لك عن وحكسي كرنا قرقنا عذا إسكالة قال لك عن عذا الباء إسكالة وإحنا جوزة الحلو لابد وإحنا وقرب بعيه مركب على كل حال وما تنتهي من كمان ستحات ورنت وكعذر دارنا هنا ضد بدن أو مضناي إن هالكلمات كذا كجديان oo waxa jira waqtigu saamixi waayay iyo barnaamijyo kale halkan loogu talagalay inta waa idinka raali gelinaynaa khudbadi ay mudnaadna ururka macallimiinta midowga ardayda Maqan Cabdulqaadir kelmadiisa oo ku hadlaayay ayaa runtiina taasiiriso na saameysay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ayaa isaguna kelmadii meeshaan gobolka iskala jeediyay anigoo odaynimo baan maaragtay u soo istaagalkan waana ku maasantiin shirkeennana waa noo daafuraya maanta وأنا نوح رأيي والسلام